عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا إذن سلامي دمان أخيارتك حرام channelka أنفع network maanta waxaanu ka hadli doonaa oo video kooban aan kusoo koobi doonaa qaabka ugu wanaagsan ee loo xariisto DeFi-Lottery-ga. DeFi-Lottery runtii waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan isla markaana aad u fudud oo ku xidhan kaliya nasiibka qofka inuu helo fursadda uu ku tagi lahaa Mareykanka. Haddaba waxaa jira dad badan oo qaab khaldan u xareeya iyo dad badan oo aaminsanin inuu jiraba. Haddaba maanta waxaanu ka hadli doonaa qaabka ugu wanaagsan ee loo xareeyo. Marka ugu horeysa horta iyo dad badan waxaa jira iyagana lacag laga qaato si loo xareeyo. Runtii waa barnaamij aad iyo aad u fudud oo aad iskaga xareysan kartid. Marka ugu horeysa horta waa inaad gashaa website-ka saxda ah. Waayo waxaa jira website-o aan sax ahayn oo u eg kan Mareykanka ee saxda ah. Tusaale xaggaas sareysa ka muuqata waxa idinku qoran defiprogram.state.gov. waa website-ka official-ka ee saxda ah ee ay dawladdu leedahay. kuwa kale wax yar bay kaga duwan yihiin defiprogram.gov.net wax noocaas oo kale ah. Marka horta waa ka dooratid. Okay. Ka marka aad dooratid waxa ku soo baxaya page-ka ugu horeeya Electronic Diversity Visa Program. Halka waxa ka muuqda sanadkan iyo xilliga bilaabmayo xilliga la xidhayo macluumaadka horeeya. Halka waxa ku qoran doonaa muxuu ahaay instructions-ka ayaa barta ka muuqda. kuwaas iyaguna sanadka soo update karaya laakiin in kuwan soo akhriyay wax badan oo cusub kuma jiraan waan iska dhaafi doonaa. Halka waxa ku jira iyaguna Allahumma salli ala Muhammad examples-ka photos-ka tusaalayaasha sawirka la doonayo ee qofku ay tahay in raaco si sawirkiisu uu sax u noqdo. waayahay halkan ugu hooseysa akhtarka ah waa begin entry oo ah halka uu qofku ka bilaabayo oo marka uu bilaabanayo barnaamijka inuu xareeyo. kaasas ku dhufan deetana waxa ku soo bixi doona page-kaas ku soo bixi doona. Page-kaas marka uu ku soo baxo waxa ugu horeeya waad gelinaysaa horta waa magaca qofka oo magaciisa dhammaystiran, family name-ka ama last name-ka, magaciisii iyo middle name-ka. Marka last family name waa magaca ugu dambeeya qofka. Mesela hadda tahay Caasha Maxamed Faarax oo kale. Halka ku dambaysa ugu horeysa wax soo gelaysaa magaciisa ugu dambeeya Faarax. The first name magaca Caasha iyo middle name-kii ay soo gelin doontaa. Okay, waxa ku sii xiga gender-kii oo isna iska fudud male and female. Waxa ku sii xiga dhalashadii. Waxa oo dhan wax ka tixraacsan laakiin baasaboorkaaga ay information kugu qoran marka hore sida ay ugu qoran yihiin baad ugu qori doontaa halkan. Waxa ku sii xigta qodobka afraad city where you were born. magaalada ku dhalatay. gobol looma baahna state looma baahna waxaas looma baahna. waa magaalada ama tuulada specific aad keentay aad ku qori doontaa. qodobka shanaad isagana waxa lagu qori doonaa country-ga wadanka aad ku dhalatay. waayahay waxa ku sii xigi doona country of eligibility wadanka la ogol yahay inuu soo xariisto. haddaba wadankan aad ku dhalatay haddii uu yahay wadan loo ogol yahay Soomaaliya passport Soomaaliya isticmaalina ama passport Ethiopian ama wax doona ha ahaado waa waddo loo ogol yahay. marka halka waxaad dooran doontaa yes iyo no-daasi yes baad dooran doontaa oo waa already wadanka waa eligible iska dhaafi doontaa. waxa ku sii xiga qaybta passport-ka hadda waad arkay mar labaad baa magaciisa gelin doontaa last name-kii first name-kii iyo middle name-kii. xagana waxa gelin doonaa passport number-kaagi. waxa ka xigi doona passport waqti uu dhacayo. waxa ku sii xiga wadanka bixiyay oo ah halka ka dooran doontid. okay qaybta ku sii xigta passport exception-kaasi aad isticmaali maysid waayo already passport baad lahayd. haddii aad passport lahayn oo wadamada dadka degan aad tahay passport aan loo ogolayn qaataan waxa ka dooran doontaa marka. halka aan dhaafno waxa gelin doona qodobka sideedaad oo ah sawirka. sawirku waa barta ugu muhiimsan ee lagu kala reebo dadkan soo xariistay DeFi-Lottery program-ka. DeFi-Lottery-ga sidaan ognahay waa bakhtiyaa nasiib waayo wax kale oo dadka lagu kala qiimeynayo oo lagu kala reebayo fara badan meesha ku qoran ma jirto. waa basic information wax ku xareynaa meesha. haddaba sawirku sida iyaguba ay ku sheegaan qoraaladooda waxa weeyaan waa barta ugu muhiimsan ee dadka lagu kala reebo. Salaam qoran photographs must be submitted at the time of every DeFi entry. Photographs that do not comply with all specifications including but not limited to the residence of the photo must not be taken in the last 6 months. Composition photos unacceptable backgrounds are grounds for disqualification.
iminka kaasoo kale waxaad ka muuqataa in waxyaabaha dadka lagu reebiyaba aasaaska u ah waa sawirka weeyaan oo la kulmi waaya shuruudihii looga baahnaa. Okay, shuruudahan maxay haddaba? shuruudahaasi horta waxa ugu horeeya waynu geli doonaa xaggan hoose ayuu ku sheegayaa in xagga ku upload garayso sawirkaaga. way haddaba photo examples kaasaynu qaadan doonaa si aynu usoo ogaano photo examples baynu ku dhufan doonaa si aynu usoo ogaano bal sawirku waxyaabaha looga baahan yahay. Okay, halkan waxaa naga soo baxay pagekii baynu ku dhufanay, waxaa naga soo baxay photoska bartan halkaa waxa ku yaala kur dhinacan muxuu ahaayey bidixdana waxaa ku taxan qodobo fara badan ayaa ku taxan. qodobadaas waa shuruudaha looga baahan yahay inuu sawirku yeesho. koogu koowaad waa shadows and lighting, ka labaad waa glasseska, ka saddexaad waa size and positionka, ka afraad waa resolutionka, waxaa ku sii xiga digital iterationka, waxaa ku sii xiga poska. qodob ayaan u geli doonaa. Okay, haddaba waxaan ku horin doonaa qodobka ugu horeeya oo ah shadowska. shadowsku waa inaan sawirkaagu lahayn background hadh, inaan lahayn. tusaale ahaan iminka xagga qaar cross la saaray baa jira, wadiga arkaya lama ogola, waayo backgroundkiisa madow waxbaa laga bedelay. kanoo kale isaguna backgroundkiisu sax maaha, cross baa la saaray. sawirka saxdii waa kaa weey, waa kaa backgroundkiisu hadh male, waa okay weeyaan. acceptable photo wadiga arkaya. qodobka labaad waa glasses, waa inaan muraayad lahayn. qofku muraayad uu xidho waa cross, lama ogola muraayad. wadiga arkaya kaas muraayad buu xidhan yahay, cross baa la saaray, gabadhaas ayaa okay. no glass in photo ka waa acceptable. waxaa ku sii xiga size-ka sawirkaaga inuu yahay size-kaagu size-ka saxda ah. size-ka ninka laga hadlayaa ma aha ka sawirka guud maaha, kurkaagana oo qura ay ku dhex jira sawirka size-kiisa waa inuu ahaado 51x51 millimeter waa inuu ahaado. okay, resolutionka sawirkaagu waa inuu ahaado sawir shaaba oo kaas waa cross oo aanu ahayn sawir dee blurring uu ku jiro amba muxuu ahaayey sawir la yara qariyo qayb. saxaan kan kale qayb baa qarsoon idinka arkaya, wejigiisa si fiican looma arkayo, waa blur shaaba waxbaa soo dahaarsan, marka kaasoo kale lama ogola. okay, waxaa ku sii xiga digital alternation and retouching, in baalkii editing lagu sameeyo deetana dee iminka dhakadiisa idinka arkaya waxbaa laga edit gareeyey, waxbaa background laga soo jaray, wax noocaas editing iyo photoshop waxa la lama ogola. sidoo kale lama ogola isoo sheeg iftiin fara badan ama qofka oo muxuu ahaayey dee ka jeedsada isoo sheeg kamarada. tusaale kaasoo kale lama ogola oo waxay keenaysaa qofkii in sawirkiisa loo arki waayo. sidoo kale expressions oo dhan laga hadlay halkan, qofku inuu jeesto lama ogola, qof xataa inuu qoslo oo facial expression sameeyo isna waa cross oo lama ogola. qofku inuu cirka iyo wax iska eego oo aanu kamarada eegin, dhinaca doona waxa eegaysa lama ogola oo uu afka taago. qofku inuu siiro qalloociyo oo tusaale kale inuu qoorta jejeeriyo isna waa cross, sidaas sawirka ka muuqato isna lama ogola. sidoo kale dhinac qofku inuu galo isagoo dhinac u jeeda isna waa cross. sidoo kale in qofku indhaha isku yar qabto oo muxuu ahaa dee wejigiisa dhammaystiran la arki waayo isna lama ogola. waxaa ku sii xiga inta badan sawirka wuxuu khuseeyaa dumarka, maadaama dumarkuna yihiin dumar islaama oo asturan oo madaxooda timoogu qarsoon yihiin. sida looga baahan iminka gabadhaas sawirkeedu waa sax, waana sida ugu wanaagsaneyd, waayo wejigu ma la doonaya, wejigii ilaa fooda ilaa garhka ilaa dhabanka ilaa laga gaaray dhegta waa muuqda. okay, waa kaas waa okay, waa perfect. tusaale ahaan kanoo kale iminka sawirkaa iminka waxaad arkaysaan lama ogola isaga, waayo dee muxuu ahaayey niqaamkii ama shalmadii ay ku hawneyd gabadhu ayaa wuxuu soo gaadhay heer uu qariyo wejigii qayb ka mid a, dhinacyadii hadh buu ku sameynayaa. markaas kaasna cross, sawirka intaa loo lama ogola isna. marka iyo timahoo qofku muxuu ahaayey isku soo qariyo oo qayb ka mid a jirkiisa wejigiisa ku qariyo isna qofkiiba qarinaysaa. sidoo kale ragga markay noqoto koofiyadaha xidha, koofiyadda waa inaad iska saartaa, waayo intaad gelayso sawirka dee koofiyaddu waxay qarinaysaa qayb ka mid a wejigaaga haddii aad si xun oo dheer usoo xidhatid. marka qodobadaas waxaa ugu dambeeya backgroundka. qofka backgroundkiisa waa inuu ahaada background caddaana oon waxba ka dambeynin, idinka kaas waa okay. kanoo kale isagoo cross, waayo backgroundkiisu maaha nadiif idinka arkaya, amba
daaqad yar amba xafiiskaaga ama meel yar oo background kan lama ogola. Marka shuruudahaas kule dib oo daawan doontaan waan soo koobaynay waan dadabin ku marnay kuwaas oo dhan waxay keenayaan in dhammaan sawirkaagu noqdo sawir aan la tixgelin isla markaana loo tiriyo ama waqtiyaansiga qorituurka hadhow toole aanad soo gelin buulka. Marka si aad buulka waqtiyaansi ku soo gasho waa in shuruudaha ku dhammaystiran yihiin oo ay number 1 ka tahay sawirka oo dhammaan sita shuruudaha ka soo sheekeynayna oo dhan. Okay, haddaba waxaan toos ugu noqon doonaa page-keeni hore. sawirka markaan bartaa ku upload ee sawirka shuruudihiisa soo dhammaystirato waxaan kulahan ka qeexi lahaa oo soo sheegi lahaa inta badan sawiraanta waxay noo garanayaaba qoryaha photos ka qaada oo qaar ahaan photographiska wali experts ku ah loo tiri hore u qaadi jiray shuruudaha dhan way garanayaan. Marka kaasoo kale isagu wuxuu ku dhammaystiraya ama waad la check-garin doontaa. Okay, qodobka sagaalaad waa mail address-ka oo ah fariimaha haddii lagu soo dirayo hadhow aad heshid meesha lagu soo hagaajinayo wax weeyaan address-kaaga iyo barta aad degan tahay ay ka sheekeynayaan. qodobka tobnaad waa country you live today waa waddanka hadda aad ku nooshay waad gelin doontaa. phone number-kaaga isagoo optional waana gelin kartaa numberka waana iska dhaafi kartaa. waxaa kusii xiga qodobka 12aad oo ah emailka. emailka waa very important. emailka halkaad gelinaysa waa ka hadhow toole haddii aad heshid lagala soo xiriirayo lama bedeli karo hadhow toole. Marka qofku waa inuu emailkiisa email saxa oo u shaqeynaya oo hayo passwordkiisa oo hayso ku qorta. Okay, qodobka 13aad waxa weeyaan education level-ka. educational level-ka marka laga hadlayo waxa weeyaan la aqoonta qofka halka ay taagantay. inta badan loo tirigu halkana si gaar ah ayuu dadka waqtiyaansiibka u jeegay muxuu ahaay mudnaanta u siiya. waayo sida instructions ku sheegay instructionskii aan soo eegnay qodobadii ugu horreeyay ee aan soo eegnay waxa kamid ahaa education-ka. education-ku waa qodobka ugu muhiimsan xagga markay noqoto inaad heshid. salaxano kale qofka imka muxuu ahaayay primary ama qofka high school ama qofka high school diploma uu ka chance badan yahay qofka aan shahaado ku qoran. marka qofka degree-na uu ka sii fiican yahay. therefore si qofku chance-kiisa u fiicnaado inuu ku qorto shahaado ugu wanaagsan ee u sareysta oo haysto ayaa halkana fiican. waayo dadkan waxay rabaan dad waddanka ay keenayaan oo aqoon leh oo at least wax garanaya oo shaqo iyo barnaamijyo kale kasii bilaabo waddanka ayaa la doonaya. marka halkana si gaar ah u shaqeeya. qodobka 14aad waa xaaladda status-ka ama aad ku jirto ee ah single ama married amba xaalad guur ee qofku ku sugayay guud ahaan. halkana waa ciyaalka qofku uu leeyahay. marka qodobkan haddii imka aad doorato tusaale ahaan kale married oo aad tahay qof married ah qodobka koowaad waxa weeye unmarried oo kaasi waa unmarried. ka labaad waxa weeyaan married laakiin qofkaygu ma aha US citizen. marka qofkii married-ka ahaa ciyaalkiisa ama qofkii divorced-ka ahaa ama qofkii widow-ga ahaa ama qofkii legally separated-ka ahaa hadhow tole ciyaalkiisu barta gelin doona inta qof ee uu leeyahay bartaas buu ku xareyn doonaa. marka barnaamijkiidaas ku dhanyahay runtii waan dheereynay. waxaan aad u xusayaa qof inuu sawirka si fiican iska baradego iyo website-ka saxda in qofku helo waa labadaas. waxaan kale waa macluumaad muhiim macluumaad iska basic-ah. marka intaas soo koobi doonaa video kale oo runtii faahfaahsan ama qofkii u baahday inuu si gaar ah muxuu ahaayay macluumaad uga ogaado gaar ahaan sida u khuseeya inuu soo xiriiri karaa oo email-kayga oo ku qoran description-ka hoose ayuu nooga soo diri karaa ama WhatsApp-kayga oo hoose ku qoran. runtii aad iyo aad mahadsantihiin. intaan ku kulmi doono video kale oo xiiso leh aad baad u salaamantihiin. Bye.